kulan wacan wanaagsan idil ahaantiinba meel walba joogtaan kusoo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a wararka aanu ka helayno ama ka imaanayo aagaga kala duwan ee dagaalada ay ka socdaan wadanka Ukraine ayaa sheegaya in ciidamada Ruushku ay wadaan duqeyn aan kala joogsi lahayn iyada oo ay ciidamada wadanka Ruushku ay ku howlan yihiin sidii ay ku qabsan lahaayeen agag horle iyo magaalooyin cusub waxaana la sheegayaa inay haatan si weyn ay ciidamada Ruushku iskugu ballaarinayaan magaalooyinka bariga dalka Ukraine. Khubaro ku takhasustay laanta adeega hawada oo ka socoto dalka boqortooyada Ingiriiska ayaa iyagana la sheegay inay galbeedka dalka Ukraine ay si weyn ugu howlan yihiin iyadoo hay'adda ugu sarreysa baarista dalka Ruushka ay sheegtay in sabtidii ay eegayso warbixin ay warbaahinta Ruushku soo saartay oo ku saabsan in saasa loo diray gobolka Lviv ee galbeedka dalka Ukraine. Wakaaladda wararka ee Ruushka ayaana si weyn u hadalhayso arrintan ku saabsan in khubaradaasi ay ku sugan yihiin galbeedka dalka Ukraine iyo sidoo kaleeto bariga halkaasina ay ka wadaan baadhitaan waxyaabihii halkaasi ka dhacay. Aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka ayaa generaal howlgab ah u magacaabay isku duwidda kaalmada militari ee dalkaas uu siinayo Ukraine. Generaal Terry Wolf oo dhowaan ka mid noqday ciidamada qaranka Mareykanka ayaa haatan loo magacaabay inuu noqdo isku duwaha kaalmada militariga ee dalkaasi uu siinayo Ukraine. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay sabtidii gurigiisa ku yaala Benigala ee magaalada Islamabad ku sheegay in uu fariin u dirayo dhammaan ururadiisa si ay ugu diyaar garoobaan socdaalka xorriyadoonka ah ee lagu marayo gudaha magaalada Islamabad. Daawadayaal qodobadaasi oo faahfaahsan ayaad warkeena kaga bogan doontaan haddii ay tahay markaadii kugu horreysay ee barteenan YouTube-ka aad soo booqato channelka subscribe saar siina share garee barnaamijka haddii aad horey noola joogtayna waad ku mahadsan tahay la joogitaankaadee halkaasi ka sii wad daawashadaada wacan. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Aan ku bilownay dagaaladii ka socday dalka Ukraine ayaa mar walba waxa ay sii geliyaan jawiyo ka duwan jawiyadii hore iyadoo mar walba saraakiisha dalka Ruushku ay soo saarayaan baaqyo kala duwan oo ay ugu baaqayaan in ciidamada dalka Ukraine ay isku soo dhiibaan laamaha ammaanka ee dalka Ruushka ku sugan gudaha dalka Ukraine iyadoo wadamada reer galbeedkuna ay wadanka Ruushka ugu baaqayaan in ay gebi ahaanba ka waantoobaan falalkan argagixisada leh ay ku hayaan wadankan madaxa bannaan ee dalka Ukraine. Wararka imaanaya agaga kala duwan ee ka tirsan dalka Ukraine ayaa sheegaya in ciidamada kala duwan ee wadanka Ruushku ay wadaan duqeymo aan kala joogsi lahayn iyo qabashada goobo horle. Saraakiisha Ruushka ah ayaa sheegay in hadafkoodu uu yahay qabashada koonfurta Ukraine iyo furidda marimo muhiim ah oo dagaalada ku xirma. balse intaasi ka hor waxaa jirto guuto iyadu loogu magac daray Somali Battalion oo ah guuto ka dagaalanta bariga dalka Ukraine waxaana ay aad ugu howlan yihiin sidii ay gebi ahaanba ay ku qaban lahaayeen dalka Ukraine. Guutadani waxay ahaayeen guuto aad uga cabsado ciidamada wadanka Ukraine ay uga cabsadaan waana guuto si weyn uga amar qaadata ama ugu xidhan ciidamada wadanka Ruushka. Guutadani ayaa aad loo hadalhayaa ayagoo Somali Battalion garab military oo ka tirsan jabhadda ka dagaalanta gobolka Donetsk ee bariga Ukraine. Guutada Soomaalida ee Ruushku taageero waa cutub military oo ka tirsan isbahaysiga midowga loo soo gaabiyo DBR ee ka jira gobolka Donetsk. Wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo bariga dalka Ukraine ayaa sheegaya in guutada Soomaalida la arkay iyadoo dhowaan caalamo iyo ubaxyo ay ku soo dhaweynayaan dadweynaha gobolka Donetsk iyagoo markaa ka yimid dhanka magaalada Mariupol onogeyn in bishii la soo dhaafay ay ku hareereysnaayeen ciidamo
laga shakiyey oo ahaa inay ciidamadan hadda aanu ka hadlaynay Somali Battalion iyo sidoo kaleeto ciidamada wadanka Ruushka oo gebi ahaanba halkaasi hareeyay waxaana ciidamadani ay ka geysteen xasuuq baan si kastaba ha ahaatee ciidamadan Somali Battalion ayaa si weyn looga taageersan yahay gobolka Donetsk ee dalka Ukraine waxaana ciidamadani shaki la'aan in ay ka mid yihiin ciidamada ay si weyn ay u taageeraan ama ugu dhaartaan wadanka Ruushka ayaa hubeynayo ciidamadan Somali Battalion iyo sidoo kaleeto ciidamo kale oo ayagana ka tirsan oo ka dagaalama gudaha wadanka Ukraine oo ayagu gebi ahaanba u rabo wadanka Ruushku in ay goboladooda ay si xora ula wareegaan kadibna haddii ay kusoo biirayaan wadanka Ruushka ay caadi iska noqoto haddii kalena ay gebi ahaanba banaankooda xornimada ku qaataan Ruushka ayaa ka go'an sidii uu gebi ahaanba uu ku tirtiri lahaa midnimada iyo sidoo kaleeto qarannimada wadanka Ukraine asagoo marar badanna ku soo celceliyey in ciidamada wadanka Ukraine iyo sidoo kaleeto ciidamada sida gaarka u tababaran ee madaxweynaha dalka Ukraine staffka u ah iyo madaxda laftirkeeda ay isa soo dhibaan haddii ay soo dhibaan uu cafis u fidin doono haddii kalena inta uu hal mid ka nool yahay ay dagaalka sii wadi doonaan ciidamo si gaara u tababaran oo laga leeyahay boqortooyada Ingiriiska ayaa la sheegay in ay joogaan galbeedka iyo sidoo kaleeto bariga dalka Ukraine halkaasina ay ka wadaan baaritaano ay ku xaqiijinayaan waxyaabihii uu Ruushku halka ka geystay hay'adda sirdoonka ugu sareysa dalka Ruushka ayaa iyada ka warheshay arintaasi iyadoo si weyn warbaahinta dalka Ruushku ay u hadalhayso ciidamadan boqortooyada Ingiriiska ay u soo dirtay dalka Ukraine iyo meelaha ay ku sugan yihiin sirdoonka wadanka Ruushka ayaana si weyn ugu raad joogo ciidamadaasi la sheegay inay ku jiraan gudaha dalka Ukraine si kastaba ha ahaatee Ruushka ayaanan u ogolayn wadamada reer galbeedka inay soo galaan gudaha wadanka Ukraine asagoo halkaasina ka ilaalinayo inay kaalmo military iyo sidoo kaleeto ciidamo reer galbeeda ay soo galaan gudaha wadanka Ukraine haddii ay soo galaana halkaasi waxaa ka dhici karo dagaalo waaweyn oo la mahadinin ayuu Ruushku sheegay aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiyana waxa uu sheegay in uu u magacaabay sargaal howlgaba asagu oo kaasi oo uu sheegay inuu caawin doono ama ka caawin doono kaalmada military ee dalkaasi uu siinayo wadanka Ukraine General Terry Wolf oo dhawaan ka mid noqday golaha ammaanka qaranka Mareykanka ayaa khibrad u leh hawsha loo igmaday sida ay sheegeen dadka aqoonta u leh waxa uu taliya ku-xigeenka u ahaa isbahaysigii jabiyey Daesh waa qof ugu wanaagsan ee lagu aamini karo dhinaca hawshan loo igmaday ayay uu sheegay qof magaciisa la qariyay oo u waramayay TV-ga CNN Mareykanka ayaa doonaya in Ukraine ay hesho hub ku filan xilli uu dalka Ruushka gebi ahaanba ciidamadiisu ay ku sugan yihiin gudaha wadanka Ukraine halkaasina ay ka wadaan duqeymo iyo sidoo kale dagaalo joogta Mareykanka ayaa marar badan ugu hanjabay wadanka Ruushka in uu cawaaqib xumo kala kulmi doono dagaalka uu ka wado wadanka Ukraine balse ilaa iyo haatan waa sargaalkii ugu horeeyay ee Mareykanku uu soo diro gudaha wadanka Ukraine iyadoo sargaalkani la sheegin goorta iyo sidoo kale goobta uu ka howlgali doono balse waxa uu la sheegay in uu la taliye ka noqon doono dhinaca militariga iyo sidoo kale hubka la siinayo ugu dambeyntiina ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Pakistan Imran Khan ayaa shir jaraa'id oo ku qabtay gurigiisa oo ku yaala Benigala magaalada Islamabad ku sheegay in fariin uu u dirayo ururada siyaasadda gaar ahaan kuwa ay isku xisbiga yihiin socdaal dheer oo lagu mari doono inay ka soo qayb galaan socdaal dheer oo lagu mari doono magaalada Islamabad Imran Khan ma uusan shaacinin xilliga iyo waqtiga dhabta ee la qaban doono socdaalkan dheer iyo waxa uu la jeedo iyadoo weyn in bishan gudaheeda laga qaaday xilka kadib markii ay baarlamaanka dalkaasi u codeeyeen in gebi ahaanba uusan asagu mudnayn inuu sii ahaado ra'iisul wasaaraha dalkaasi wadankan ayaa dagaal weyn kula jiro iyo colaad weyn kala dhaxaysa wadanka India oo asagu daris la waxaa sidoo kale siyaasadda Imran Khan lagu sheegaa inuu yahay nin aad ugu adag dhanka diinta balse wadamada reer galbeedka oo arintaasi ka soo horjeedo ay markii dambe
mooshin iyo sidoo kaleeto dhaqaalo ay ku bixiyeen xildhibaanada halkaasi xilkiisa ku waay. daawadayaal intaasi ayaan kusoo koobayaa war waxaan dal iyo dibadba kahay intaan warkan warka xiga ku kulmi doona waxay naga tegay sidaas iyo ammaane Allah.